dhowrkii maalmood ee ugu dambeysay dagaallo xoogan ayaa dhex maray maamulada SSC Khaatumo iyo maamulka Somaliland kaasi oo ka dhacay deegaano aan aad uga dheerayn magaalada Cerigabo. Furin kaloo dagaal ayaa ka furtay deegaanka Shangeed oo horey loogu dagaalamay horaantii bishii aynu soo dhaafnay. dhowr dagaal oo halkaasi ka dhacay waxaa gebi ahaanba lagu jabiyey ciidanka maamulka Somaliland. mar kale kooxo loogu magac daray SSP iyo ciidanka maamulka Somaliland ayaa deegaankaasi weerar ku soo qaaday ayagoo markaasi ay ka hortageen kolonyo ciidamada oo halkaasi ku sugnaa oo ka tirsan kuwa maamulka SSC Khaatumo. Somaliland weli kama aysan waantoomin dhamaceeda ku saabsan inay dib u qabsato deegaanada SSC. weeraro gaadmo ah iyo weliba dagaal abaabulan ayaa markaasi ay soo qaadayaan mar kasta iyadoo halkaasina ay kala tegayaan jab iyo weliba maxaabiis laga qabsaday. dagaalkii ugu dambeeyay ka dhacay magaalada Cerigabo waxaa gebi ahaanba lagu xaqiijiyey in ciidanka maamulka Somaliland halkaasi laga qabsaday in ka badan 150 askari iyo weliba maleeshiya tiro badan oo dhaawaca oo halkaasi ay uga carareen. iyadoo magaalada Cerigabo labada daafood ay kala degan yihiin labada shacab ee kala taageersan SSC iyo maamulka Somaliland oo mid walba halkaasi ka bilaabay qax iskiisa maadaama kooxaha labada dhinac ay markaasi haatan ku hanjabayaan in dagaal halkaasi uu ka dhici doono sidoo kale tana midkii awood bato magaaladaasi gacanta ku dhigi doono. labada maamul ayaa sheeganaya magaalada Cerigabo walow maamulka SSC Khaatumo ay juqraafi ahaan si toos ah uga tirsan tahay magaaladaasi Cerigabo balse maamulka Somaliland ayaa iyagu isku markaasi xoojinayo sidii ay magaaladaasi gacantooda uga bixi lahayn. Somaliland haddii weydo magaalada Cerigabo waxaa gebi ahaanba ay waayeysaa gobolka Sanaag maadaama ay tahay magaalo madaxdii gobolkaasi. waana arrinta keentay in ciidankii ugu tiro badnaa oo ka tirsan kuwa maamulka Somaliland halkaasi lagu soo daabulo sifa ay u xaqiijiyaan inaysan magaaladaasi gacantooda ka bixin. warar ay horey u baahiyeen warbaahinta gudaha ee maamulka SSC Khaatumo ayaa sheegaya in ay markaasi ciidan gudaha u geliyeen magaalada Cerigabo kuwaasi oo ka dagaalamaya dhowrkii bari ugu dambeysay. walow arrintaasi ay beeniyeen dad ku sugan magaalada kuwaasi oo sheegay in labada ciidan ee kuwa maamulka Somaliland iyo SSC Khaatumo midkoodna uusan ku jirin magaalada Cerigabo sidoo kale tana ay ku kala sugan yihiin meel aan aad uga dheerayn markastana uu dagaal ka qarxi karo gudaha magaalada. sidoo kaleeto maamulka Somaliland ayaa iyaga dhankooda sheegtay in dagaalkii halkaasi ka dhacay ku qabteen saraakiil walow arrintaasi markii dambe ay beeniyeen odayaasha dhaqanka iyo weliba saraakiil ka tirsan isla ciidankii maamulka Somaliland. balse dhinaca SSC Khaatumo waxay sheegeen inay gacanta ku hayaan saraakiil sare iyo weliba maleeshiya tiro badan kuwaasi oo u soo bandhigeen warbaahinta. waxay dhinaca kaleeta SSC Khaatumo soo bandhigeen gaadiid dagaal iyo weliba hub tiro badan oo sheegeen inay ka furteen ciidankii maamulka Somaliland maadaama ay la wareegeen mid ka mid ah kontarooladii magaaladaasi laga maamulayay taasi oo u fududeysay inay gacanta ku dhigaan ciidan tiro badan oo ka tirsan maleeshiya beeleedka iyo weliba kuwa maamulka SNM ee markaasi ku sugnaa gudaha magaalada Cerigabo. si kastaba xiisadan ka soo cusboonaatay dhinaca Shangeed ayaa mar kaleeto noqonayso furin dagaal oo xoogan taasi oo sababi karta inay dhinacyadu markaasi midba midka kaleeto oo halkaasi ciidan geeyo sidoo kaleetana awoodda ay markaasi kala yaraato oo markaasi dhinacun ay raacdo awoodda iyo weliba dagaalka halkaasi ka dhaca. balse Shangeed waa deegaan muhiim u ah dhinaca SSC marka la fiiriyo maadaama laga difaacayo magaalooyin waaweyn oo ka tirsan gobolka Sool. guud ahaan daawadayaal waxyaaba ka soo kordho qaybaha dambe wararkeena idinku soo gudbin doonaa tan iyo intaan midka kan ay ku kulmi doono waxaa idinka tagay sidaas iyo ammaan Allah.